صح aniga halkaasi wixii aan kala kulmay aniga ragnimadeeda ugu soo baxay ma fahmaysaa صح hadal qurux badanna waa u reebo iska daaya ay xaasidnimada Soomaalidana waa u hoosgeliyay waan u sheegay YouTube-ka dib صح hadii looga laabto xitaa waa la helayaa waxay aad weliba ها u ما yaqaanaan يهدنا saaxiib dhoola cadeynta waa lagu dhoola cadeynaa gadaalna waa laga cunaa ma fahanti exactly waa ku raacsana I agree with him lii waa ku raacsanahay marka inaa wallahi billahi hadeertaan yaxbulo hadda aniga hadda Malaysia ma fadhiyi nin cabaadaya ma ihi dee sidii laan dheernimo saaxiib waa soo baxayo geesaan ka dego guri magaalada ugu weynaayaa degayo inta qof aan garab siin karno waa soo garab siiyo inta qof oo la cilcili karo ani aan arkana garab waa soo siiyo war shaqaysta iri nacala hooyadin ku yaala shaqaysta oo dad fiican noqda صح dee dadkii saaxiib kulligood lafihii oo dhan ba cudur baa ka galay xaasidnimaa ka gashay ayagoo dhan ba xaasidnimaaba lugaha ilaa madaxa xaasidnimo ka gashay dee anigana dad waliba wada cadow oo wada nuuc kalaayo laisku wada qoslayo oo aad u jeedid oo lisgoosgoosanayo kuma dhex noolaan kari saaxiib ragnimadeeda ugu soo dhex baxay halkaasaan cerkaas ugu sii dhegay inaan hadeertaan dib ugu laabto iyo aan dad eedeeyana daba qurux badna waa صح ayaga iyo وي maanta haysataa Soomaali oo dhan u jeedo dee maanta haysataa ilaahayna cafisa weydiistaan gabadhaas walaasheen ahana ee ilmaha yarka ka dhintaan cafisa weydiistaan hadda kadibna dad toosan ha noqdaan haddee noqon waayaanna Soomaa dee Soomaali waa maxkamad saaxiib waa suuto wada miiran weeye ma fahanti wasamsigooda ha ku qaadaan ma fahmaysaa qofkii annaga aan jecelnahay aan leenahay qofkan uu saxan yahay koraan u qaadayna qofkan qalad yar iyo kibir aan ka dareennaane annaga Soomaali haddaan nahay isla weynidu waa necebna runta haddii laga hadlo dee qofka isla weyna saaxiib dhulkaasaa keennaa shalaba annaga kor u qaadnay aad iyo aad niyo lii caatow aad baa maastaa saaxiib niyahow kan ay dhahaan asad xaajiyow waxaa la yidhi waa xaasidka ugu weyn Malaysia waxaa la yidhi xataa qof dhallinyaraa markuu Malaysia yimaado intuu maalinta hore soo dhowey maalinta labaad ka guuraa guriga dunya xataa ka guuraa gas waa xaasid wey keligiis waxaa la yidhi keligiis cune gabadhaas ii sheeg oo walaashiis ah oo intaa le kaale caaw asaa youtuberka ugu weyn meeshaas wariyaha halka milyan yaa ku gaarsiiyey wariyaha Soomaalisu wax kuma tiid wariyaha qofka Soomaaliga oo shalay ku falo gareen waxaad ku daawanayay hadduu maanta dhibaato kuu sheegtay see uga carari ka dhacdaa meesha ugu weyn maanta ciyaalka soo aruursid gabadha ishay caawisaan maanta gabadha markay ilmaha ka dhinteen waa adiga hoos imaanaye oo waxa u soo qoraye shalay xagee ku maqneed challenge wariyaha inaalaha Malaysiyaanka waxaanay aad waqtiga ku bixinaysay qarashka aad inta meel ii farsa dhaas baash unta ii taabtaa dhehaysid gabadhan walaashaas kaa mudneen soo xataa sadaqa ma ahayn xaasid weeye Soomaaliya la socda waa kaligiis cuna weeye Soomaaliya inta gaarsiisay Soomaaliya anuu runta baa ku dhintaa ogaada wax kasta maxaan iga qalad war horta Malaysiadu maxay tahay sanad kasta qayla ka yeeraysa naxariis darradu maxay tahay diin la'aantu maxay tahay dhaqankii Soomaalida lagu yaqaanay oo dhan male dadkan cadcado meesha la isugu geeyay maxaa ka khaldan wallahi billahi hawiyahan daaroodkan isla xifaaltamaysa caaya maalintay Soomaalinimo iyo damqasho ay noqoto wallahi iyaga ugu horeeyo billahi